محمد حمدان دقالو geeljarihii uu garaadada ku tahay Umar Xasan al-Bashiir waa jilaaga xilligan ugu xooga badan dagaalka ka soconaya dalka Suudaan. Waxa uu hore u hogaamiyay jabhadda la oran jiray Janjaweed oo saldhigeedu ahaa gobolka Darfur ee dalka Suudaan. Waxa uu haystaa ciidan ka badan 100,000 oo wiil oo ku hubaysan noocyada kala duwan ee hubka. Waxa uu maamulaa inta badan godadka dahabka laga qodo ee dalkaasi. Waxa uu dagaal sokeeye kala soo horjeedaa ciidanka militariga ee dalka Suudaan oo hogaaminayo Abdul Fattah al-Burhan. tan iyo bishii Abriil ee sanadkan oo dagaalka sokeeye ee dalkaasi Suudaan uu ka qarxay. Suudaan xilligan waxay halis ugu jirtaa in dalku uu kala go'o oo uu noqdo laba dal oo madax bannaan. Warbixintan waxa aynu ku eegi doonaa suurtagalnimada gobolka Darfur uu kaga go'i karo dalka intiisa kale. Ugu horreyn si aan macluumaad kooban ka siiyo gobolka Darfur, kaasi oo muddo dheer ay xasarado ka aloosnaayeen. Waa gobol ay ku wada nool yihiin laba qowmiyadood oo midkood ay yihiin Muslimiinta Carabta ah. qowmiyadda Carbeed waa tan ugu badan ee gobolka oo degan dhinaca waqooyiga, halka qaybta kale ay tahay qabaa'ilka dhaqanka ku adag ama traditionalist loo yaqaano oo intooda badan Kristan ah. Labada qolo weligood heshiis ma noqon. Khilaafka ugu badan waxa uu salka ku hayaa kala duwanaanshaha qowmiyadda iyo dhinaca diinta. Dadyaga aan Carabta ahayn ma ogola siyaasadda Suudaan ee Carabtu sheeqisay. Waxa ay muddo dheer u dagaalamayeen in ay gooni uga go'aan Suudaan inteeda kale. si la mid ah Suudaanta Koonfureed oo iyaduna xornimadeeda qaadatay sanadkii 2011. Madaxweynihii hore ee dalka Suudaan Umar Xasan al-Bashiir waxa uu ku hubeeyay jabhado kala duwan oo gobolkaasi ka dagaalamo oo ay ku jirto jabhadda Janjaweed oo hogaaminayay generaalka hadda dagaalka ka wada dalka Suudaan ee Maxamed Xamdaan Dagaalo. Maxamed Xamdaan Dagaalo oo Xamiiti lagu naanayso waxa uu ahaa hogaamiyaha jabhadaasi oo gacantiisa ku sameeyay madaxweynihii hore ee dalka Suudaan al-Bashiir. waxa uu jabhadaasi al-Bashiir u adeegsaday inuu kula dagaalamo kooxaha gooni goosadka ee Darfur horaantii sanadihii 2000. laakiin sanadkii 2013 jabhadaasi waa uu qarameeyay waxaana ay noqotay RSF ama ciidanka gurmadka degdega ah. taliyihii jabhadaasina waxa la siiyay darajada generaal oo aanu isagu xaq u lahayn. ciidankaasi waxa ay ahaayeen xooga gaarka ah ee al-Bashiir oo si weyn daacad ugu ah ilaa iyo laga soo gaarayay sanadkii 2019 xilligaasi oo ay bilowdeen dibadbaxyo dimuqraadiyad lagu dalbanayo. Darfur waxa la rumaysan yahay in ay ka dhaceen gabadfallo ka dhanaa bini'aadamka oo uu geystay Umar Xasan al-Bashiir. wararka qaarkood waxa ay sheegayaan in halkaasi lagu dilay tiro ka badan 300,000 oo rayid ah. markana aynu eegno dagaalka ka socda dalka Suudaan iyo sida dadaalada xabad joojintu ay u fashilmeen. bishii Abriil dagaal sokeeye ayaa ka qarxay dalka Suudaan oo ay kala hogaaminayaan labada generaal ee kursiga ku laacdamaya. waxa lagu guuldaraystay in wada hadallo xabad joojineed halkaasi laga gaadho. Suudaanna waxay xilligan qarka u saaran tahay in ay noqoto dal fashilmay. malaayiin qaxootiye oo ka farxanaya colaadaha sokeeye ee Suudaan ayaa waxa ay gaadheen dalalka dariska sida dalka Masar, Chad iyo Suudaanta Koonfureed. maxaa hortaagan xabad joojin laga gaadho dagaalka dalka Suudaan? saddexdan arrimood waa kuwa caqabada ku ah ama hortaagan in dhinacyadu ay aqbalaan dadaalada xabad joojinta ah, gaar ahaan mid ka dhacda caasimadda oo si xooggan loogu dagaalamay. tan koobaad waa in labada dhinac mid walba uu niyadda ku hayo in uu isagu yahay mid ka guuleysan kara dagaalka. xabad joojin ka dhaqan gasha dalkaasina waxa ay caqabad ku noqonaysaa qorshayaashooda. dhowr goor dhinacyo kala duwan ayaa waxa ay isku dayeen ka shaqaynta heshiis xabad joojineed oo lagu joojinayo dagaalada ka holcaya waddankaasi, laakiin dhammaantood waa ay fashilmeen. ergada ugu weyn ee xabad joojinta ka shaqaynaysay waxa ugu weyn Mareykanka iyo Sacuudi Arabiya. waxaase jira ergooyin kale sida Midowga Afrika iyo urur goboleedka IGAD. sidoo kalena waxaa jira wadamo iskood isku xilqaamay sida dalka Kenya iyo Masar, balse dhammaantood ma ay gaadhin guul la taaban karo. maxaa yeelay dhinacyadu waxa mid kasta uu door bidayaa noocyada ergooyinka. tusaale ahaan Maxamed Xamdaan Dagaalo waxa uu door bidayaa in hawsha dhexdhexaadinta ay ka shaqayso isu tagga Imaaraadka Carabta, maadaama uu saaxiib dhow leeyahay iyagana uu hore ugu diray ciidamo calooshoodu shaqaystayaal ah kuwaasi oo ka barbar dagaalamay xulafada Imaaraadka iyo Sacuudigu ay qaybta ka yihiin dagaalka ka wada dalka Yemen. al-Burhan geestiisa waxa dooqa koobaad oo dalka Masar. Masar waxay u aragtaa xalka Suudaan in uu ku jiro ciidamada militariga ee dalkaasi. arinta labaad ee hortaagan xabad joojin laga gaadho dagaalka Suudaan waa in aanay jirin ama ay yar tahay wax rasmi ah oo dhinacyadu ay ka midaysan yihiin. xasilooni darrada siyaasadeed ee dalkaasi Suudaan ayaa muddo dheer soo taxnayd waxaana dhaqan u ah afgambiyo kursiga lagu raadsado. tan saddexaad uguna dambaysa ee caqabada ku ah heshiiska xabad joojinta oo dhinacyadu ay kala saxiixdaan waa faragelinta dalalka iyo wadamo badan oo maslaxadooda ka dhex raadsanaya kooxaha ku laacdamaya talada dalka Suudaan.
dhinacyada dagaalamaya waxa uu mid kasta hela kaalmooyin dhaqaale iyo mid diblomaasiyadeed. tusaale ahaan Sacuudiga iyo Masar waxa ay taageero xooggan la barbar taagan yihiin ciidanka militariga ah, halka RSF oo gacanta ku haya godadka macdanta laga qodo ee dalkaasi ay taageero ka helaan Ruushka iyo Isutaga Imaaraadka Carabta. ugu dambeyntiina qaar ka mid ah falanqeeyaasha siyaasadda ee dalka Suudaan waxa ay qabaan in dadaalada xabad joojinta oo lagu guuldareyso ay keenayso xaaladda colaadda sokeeye ee waddankaasi oo sii xumaata, gaar ahaan midda u dhaxaysa qoomiyadaha kala duwan ee ku dhaqan gobolka Darfur, taasi oo dabayaaqada laga cabsi qabo in ay keeni karto in dalkaasi uu kala qaybsamo.